sidee ugu noolaan kartaa nolol farxad, degenaansho iyo caafimaad? Mararka qaar, noloshu waxay noqotaa mid warwar hadheeyey oo rajo la'aan ah. Laakiin su'aasha weyn waxa ay tahay, sidee ayaa xal waara loogu heli karaa? Xalku mararka qaar meel fog kama yimaado. Wuxuu ka bilaabmaa naftaada iyo hab-nololeedkaaga maalinlaha ah. Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu Qur'aanka ku yidhi: Inna Allaha laa yuqayyiru maa biqawmin xataa yuqayyiruu maa bianfusihim. Ilaahay ma bedelo xaaladda qoom ilaa ay iyagu bedelaan waxa naftooda ku jira. Marka isbedelku wuxuu ka bilaabmaa naftaada. Nafta aadamuhu waxay ka kooban tahay laba qaybood: ruux ama naf iyo jidh. Haddii labadan si sax ah loo daryeelo, qofku wuxuu heli karaa degenaansho, farxad iyo caafimaad. Qaybta koowaad haddaynu ku horeyno waa ruuxda. Ruuxdu waa qaybta ugu muhiimsan ee qofka aadamaha ah. Cilmiga diiniga ah tafaasiil badan kama bixin ruuxda. Sayniskuna si furan oo faahfaahsan uma qaadin qaabka ay u shaqeyso ruuxdu. Laakiin hal arrin ayaa la isku wada raacsan yahay: ruuxdu waxay degenaansho ka heshaa marka ay ku xidhnaato Allihii abuuray. Ruuxda waxay ka timi xagga Alle. Marka ay jidhka ka baxdana samada ayaa loo qaadaa. Sidaa darteed, ruuxdu waxay ku noolaan kartaa waxyiga samada, maadaama ay samada ka timi, samadana ku noqon doonto. Nebigu wuxuu yidhi: ثلاثة من كنا فيه وجدهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. qofka leh 3 arrimood wuxuu dareemaa macaanka iimaanka. Waxaa ka mid ah in Ilaahay iyo rasuulkiisu noqdaan waxa uu ugu jecel yahay. Sidee ruuxda loo dejin karaa? Ku xidhnow Ilaahay, balse digriga iyo xuska Alle, akhri Qur'aanka Kariimka, joogtee adkaarta subaxii iyo fiidkii, badso salliga Nebiga sallallahu calayhi wasallam. Mar kasta oo aad culays dareento, u carar xagga Alle oo ducayso. Marka qofku sidaas sameeyo, qalbigiisu wuxuu noqdaa mid xasiloon oo degan. Xidhiidhka qoyska, farxadda iyo degenaanshaha qofku sidoo kale waxay ku xidhan tahay heerka uu gaadhsiisan yahay xidhiidhka uu la leeyahay ehelkiisa, sida waalidka, xaaska ama sayga, walaalaha iyo ehelka iyo qaraabada kale. Nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi: Man araada an yubsada lahu fiihi risqi wayudaala lahu fii cumrihi falyasil raximahu. Qofka raba in risqiisa la ballaadhiyo, cimrigiisa loo dheereeyo, ha xiriiriyo qaraabadiisa. Xidhiidhka qoyska waa mid ka mid ah furayaasha barakada nolosha, sida irsiqa iyo cimriga qofka oo u barakooba. Haddaan u nimaadno jidhka aadamaha waxaa laga abuuray ciid, sidaan dhammaanteenba wada ognahay. Sidaa darteed, waxyaabo badan oo ka yimaada dhulka iyo dabeecaddiisa ayaa door weyn ku leh caafimaadka iyo kobaca jidhka. Nolol qorshaysan, nolol farxad leh waxay ka bilaabataa qorshe iyo nidaam. Seexo habeenkii waqti hore, subaxii toos waqti hore. Samee waqti joogto ah oo aad seexato iyo waqti aad toosto. Jidhku wuxuu baranayaa nidaamkaas. Caadooyinka caafimaadka leh: cab biyo ku filan maalin kasta, cun cunto caafimaad leh, gaar ahaan khudaarta ogow. Iska ilaali cunto xad dhaaf ah iyo cayil, uma fiicna caafimaadkaaga. Si gaar ah ka taxadar cuntooyinka milixdu ku badan tahay, saliiddu ku badan tahay, cuntooyinka shiilan, cuntooyinka sonkorta badan leh, cuntooyinka qasacadaysan ama junk foodska, cabitaanada soodhaha leh. Ogow, cuntooyinka dhirta ka samaysan aad ayay ugu fiican yihiin jidhka iyo caafimaadkiisa. Ogow jimicsiga. Socodku waa mid ka mid ah jimicsiyada ugu wanaagsan. Socodku wuxuu dhisaa jidhka, wuxuu hagaajiyaa maskaxda, wuxuu kordhiyaa caafimaadka iyo ruuxda jidhka. Ogow akhriska. Akhrisku wuxuu kobciyaa maskaxda. Qofka wax akhriya, fikirkiisu wuu ballaadhaa, aqoontiisu way korodhaa, kalsoonidiisu way siyaadaa. Fadlan ka taxadar daawooyinka. Haddii aad xanuunsato, ha isticmaalin dawo aan dhakhtar kuu qorin. Daawooyinka dhirta sida
dawo dhaqameedyada, toonta, xabaasuudda iyo wixii la mid yihiin way ka faa'iido badan yihiin oo ka side effects yar yihiin daawooyinka chemicalka ah. laakiin dawo waa dawo. dawo kasta waxay u baahan tahay inuu dhakhtar kuu qoro. dawo dhireed iyo dawo dhakhtareed labaduba waa in ay kuu qoraan cid aqoon u leh. waxaan wada ognahay inta badan dadka qora dawooyinka dhirta dalkeenu in aanay aqoon badan u lahayn ama aanay haysan liisan sharci ah oo laysku hadlayn karo. hase yeeshee waxaa hubaal ah in dawooyinka dhirtu ka fiican yihiin kuwa chemicalska ah haddii cidda ku cabiraysaa ay tahay cid aqoon u leh. baraha bulshada, isticmaalka xad dhaafka ah ee baraha bulshada wuxuu keeni karaa walbahaar, niyad jab iyo xanuunada maskaxda. daraasado fara badani waxay isugu markhaati fureen in waqtiyadan dambe dadka xanuunada dhimirka la nool in badan oo ka mid ah sooska ay xanuunada ka qaadeen ay tahay social media oo ay si sirgacan u isticmaaleen. maskaxdaada ha iibsan. sidaa darteed yaree waqtigaad ku qaadato social media. noqo qof firfircoon, ha noqon qof waqtigiisa dila. noqo qof qorshe leh, firfircoon, wax baranaya, baro xirfado cusub, video editingka, digital marketingka iyo luuqadaha. waa xirfado waqtigan si fudud shaqo loogu heli karo ama adigu aad shaqo ku samaysan kartid. guusha iyo samirka. qof kasta oo maanta guulaystay maalin ayuu bilaabay, wuu dadaalay, wuu samray. guushu waa natiijada dadaal joogto ah. mar kasta ilaahay tala saaro, samir yeelo, dadaal oo ha niyad jabin. dadaalkan ha joojin. nolol farxad leh waxay ku dhisan tahay 3 arrimood: xiriir adag oo ilaahay lala yeesho, xiriir wanaagsan oo qoyska lala yeesho, hab nololeed caafimaad leh oo loo noolaado. haddii 3dan la hagaajiyo qofku wuxuu heli karaa farxad, deganaansho.